يقسم بالك عبسناي عربكي إسلاما شهادناي إندي بقايا كلمة نارته دكت مقشيدا ولا شكتي أقوبي صلاتنا وفر الأدونكيو إلهي ودحيسو وانا رحل دينتي أحد ويبو سمد ويبي الله لا إله إلا الله يقسم بالك عبسناي عربكي إسلاما شهادناي إندي بقايا كلمة نارته دكت مقشيدا ولا شكتي. السلام عليكم داودyaal kusoo dhawaada channelka AK Vlogs in dhawaad waynu kala baqnay waynu kala baahnay maanta waxaan joogaa deegaanka Garabis ayaan hadii Ilaahay ka dhigo ku sii socdaa meel aad iyo aad u qurux badan dhulku waa abaar oo imka geedamo ay soo bixin laakiin wadadaasi wadada Hargeysa weeyaan wadadaasina waa wadadii Garabiseed weeyaan marka muuqaalka ku soo dhawaada subscribe like comment-gana la socda aad iyo aad bad maasantii jimco wanaagsan jimco mubaarak bad leenahay muuqaalka isha ku hay subscribe tana saara la socda xasuus yar oo kooban weeyaan ساو مسي بدنا مقالك يقسم بالك عبسناي عربكي إسلاما شهادناي إندي بقايا كلمة نارته دكت مقشيدا ولا شكتي أقوبي صلاتنا وفر الأدونكيو إلهي ودحيسو وانا رحل دينتي أحد ويبو سمد ويبي الله لا إله إلا الله halkaasaad ka aragtaan ari baa loo lulayaa dhambiil ama galoolka dhambiishiisa ay hooyadaas u lulaysaa riyaheeda yar yaarigeeda yar kaarigi diday waxay sideeto waxa la lulay السلام عليكم هايو بوردن كيو ينو تلماماين ها هي تنالكي تكتا تي بوردن كتيجي سالكي هايد فهده انتي جرتا ها كرمس ماشي markaas ku daba maaha boodhanka ku soconay ha wada kala ku baydha ma jirtaa ha واي أرميدا جعيل با يهجامينيسو مثلك ما أتكيستو كمويدا أيدو نفتول الماديسي عمسنوها بينكي وقبات كيوتوكا تيرانيا أويو idilkood xidigaha afar qaaday socodkee halkan dhir baa ka baxday geedkan waa la dacartu magaalada Hargeysa ee eriyada ku xareeraysan oo dhan aad iyo aad uga dhaxday waxa ka baxay dhir kala duwan sida sogsogtii galoolkii cadaadii dacartii sarmaantii baa iyaduna halkaa ku taala geedka aadka ugu badan laba geed baa halkan aad ugu badano waa galoolka iyo sogsogta dacartuna iyaduna aad ugu badan bir kale oo saa si far badan ma laha marka xoorkii laga dhamay xagaagii iyo xasuus baa geela lagu xirgeeyay imika waan luulsanahay wadadaan raacina sida naloo sheegay waa wadadii Garyogol wadadii Xaabaalena waan doonaynay inaan filno Xaabaale tuulo yar oo ka shaysa baan si ay ka soo noqotaan marka
la socda insha allah dhulku waa iska abaar indhaha uma roone laakiin labada xaaladoodba waa loo baahan yahay in wax laga arko abaarta iyo doogaba reeraha halkaa ka muuqda halkaa degan kaa reerahaana ku gaari kari mayno buraha meesha xaggaase reerkaasi tegaya taarikaasi meeshaan dhowr jeero horeen tegay haddana niyo waan ambado birtaa isku egeed iyo waxaasaa lagu dabaqay ninkii la socdaa kule mayskiisad baad liqday mayskiisad ma liqin dhulkaa isu eeg wada fugsabtaas odayaal waddadii baa naga khaldantay oo waddadii aanu doonaynay waddada xaabaale aanu doonaynay markaa waddadii godhiyogol baanu raacnay tuulada godhiyogol waana la tilmaamay marka dib baanu noqonnay bal insha allah muuqaalka isha ku haya waa maalin jimcaa oo dhulku waa cidla xumaya dhulkan waa laga guuro waa abaar abaar marka waxaanu samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo bal intaan waddadii helayno oo la socda insha allah قرد تشيبس بقى وطلع نوع عنه كلام كان مرة قرد تشيبس هذا لا قرد تشيح يا قرد تشيبس هو ولا لا لكن البيت كم بدنا واحد يقارن قرد تشيبس يقول بري قلنا واحد يقارن قرد تشيح كان مقال كيش طاقة يا شباب قرن في عنتاي وأنا وأنت أنا قلت إيه ودي ولا بورد يجيسي ها وتنسوا معها سوما حابة مي حابة وطا حنا كاغا هوري ما aragta ها halka ama ka soo muuqdaan iskuul iyo xanaaniba ها waa halka wada deeguray wada ma raacday ها markay ma ka daadegto ها xaafada ay kugu daadegto hata wada deeguray loo maray maadayo ها iyagu ku sidkaan wada soo badhuma soo barka ma ka xaafada deeguray واسا halka aad ka soo dhaamisay bahala halka dhuma ka soo dhaamiyaan ma biyo meelaan ku jira halka ku jira hada doo ha dooxad ka dhaaminaysaa مريق به mariig waa soo ceel waa ceel way ما سنت aad waxa la qaran halka teedsan ama caleen xilliga abaarta gugi inta halka lagu dhigo marka caleenta la gooyo ayaa xilliga abaarta xoolaha la siiyaa hadda ay kala siinayaan marka waa xilli abaar bay kaga baxayaan waa kayd wax kale kuma garati cadaadda lagu sheegay xabagta laga gurtaa waa geedkan weeyaan waa geed manfac badan leh xagga miyiga marka la joogo isla markaana xabagta laga helo uu geeluna aad iyo aad u cuno oo aad ugu naaxo weliba halkaasay xabag weyne ku taallaayo taasaan soo goosanaya la socda xabagta halka laga gurto wata halkaa ku taalla ma arkaysaan wataa xabagti dadkeennii hore waxaa la odhan jiray berigii hore dee soomaalida ugu horreysay dee tan magaalada lasoo gelin waxaa la odhan jiray nomadic pastoralism iyo hunting aan gadanin ugaadhsata quraabsatayna marna xabagteen cuni jirnay marna ugaadheen eriyin jir marka maanta waa ugaadhsata quraabsatadii baan ku biirnay waa baasho waxay leedahay af yaro qaloocay leedahay haddii ku muddo waa khatar weeyaan waa taa waan soo gooyo xabagta wasaa midabtaadu waxay xogsataa maydho gaajada macaluul wax kaagama taraan maa lagu guray daawadayaal iminka geedkan baan saaranahay oo geed baan fuulay waa geed aad iyo aad u qurux badan dhulkuna in badan buu iga hooseeyaa saad halkaa ka aragtaan muuqaalka la socda subscribe-ta like-ta iyo commentiga saara in dawad waynu kala maqnayn dib buu soo noqday odagiya ka soo macaaneeya insha allah ugaadh badan baa waddanka joogto aad halkaa ka arkaysaan ood halkaas sii yaacaysa aad bay iga dalbsantay way soo eegaysaa marka ما كان نحن قوم بدي بالهرية daawadayaal muuqaalkii quruxda badnaa ayaan idinka soo duubaynay deegaanada Garabis Xabaale Caramadow oo ahayd last destination-kayga ama halkii ugu dambeysay bulbulowgayga uu ku dhammaanayay safarkayga yaraa gaabnaa
intaas baan kusoo gabagabeynayaa muuqaalka subscribe-ta like iyo comment-ka saara share gareeya lana wadaaga asxaabta kuna xidhno channel-kaasi muuqaalada dambe aan soo wadna haddii Ilaahay ka dhigo haddii Ilaahay ka dhigo halkaa ugala socoto waxaan haddii Ilaahay ka dhigo abaabulayaa aan wadaa safar dheer insha Allah oo wadanka min galbeed ilaa bari aan ku tagi doono haddii Ilaahay ka dhigo muuqaalo aad iyo aad u fiican qalabkii waan iminka diyaarinayay sida daroontii kamaradihii gibiladii mikrofoonadii codka oo xasan diyaarinayay haddii Ilaahay ka dhigo markaan intaa isla helo safar aad iyo aad u dheer oo kharash badan u baxayo weeyaan la soco tuuladaadii originaalkeeda haddaad Somaliland meel ka mid inuu degtana halkaa ku soo si aan iyadana aan safarka qayb uga dhigo markaa priority-ga aan u saaro oo si waafiya ku soo tuuro haddaad degto inta ka dhaxaysa xiis ilaa qulujeed ilaa balacbane faraweyne ilaa iyo ceel sheekh ama luhaya berbera ceel garde bilidhiig xaaji saalax halkaa ugu dambaysa laamulaaxayna guuxa qool dhuxulaale iyo qool buulale inta ka dhaxaysa oo dhan halkaa nugula wadaaga aad baad mahadsantihiin waan tegi doonaa meel kasta insha Allah la socdo muuqaalada